كدولة هان رنتي dadaal weyn ama juhdi aad weyn ayaa ganacsatada iyo dawladduba ayagoon u kala harin ayay ka geysteen sidii cudurkan saameyntiisa dhaqaale aysan shacabka Soomaaliyeed u dareemin muxuu ahaa hoos loogu dhigi lahaa muxuu ahaa dhibaatooyinkiisa marka waxaa jira guddiyo runtii ra'iisul wasaarihii uu hogaaminayay runta ganacsigu way ka mid ahayd qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan caafimaadka intuba ay muxuu ahaa ilaa haddana muxuu ahaa ay ku howlan yihiin waxyaabaha aan marka tilmaami karo waxaa ka mid ah isagoo cudurkan runtii ku soo aada bishii Maars 16-keedii wixii ka dambeeyay ilaa hadda saameyntiisii ay taagan tahay ayaa haddana bilihii markii uu bilowday dawladdu waxay runtii go'aan iyadoo ganacsatada la tashi la sameynayso ayay waxay qaadatay go'aan runtii aad laga maarmaan u ahaa kaasoo ah cuntada daruuriga ah ee laga maarmaanka ah in qayb ka midna muxuu ahaa canshuurta laga dhaafo 100% qayb kalena 50% ee laga dhaafo marka ka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha runtii aad ay wala socotay mar walba waxaan ku sameynaynaa qiimeyn bil walba arrintaas iyadoo waliba ay ku soo aada bishii Ramadaankuna ay markaa ay timid marka ganacsatada halkan joogto dhammaantood iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa runtii kaalinta laga maarmaanka ay ka qaateen sababtoo ah ujeedadu waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed loo faa'iideeyo gaar ahaan dadka danyarta ah ganacsatada marka kama faa'iideysan ee dadkii Soomaaliyeed waa u faa'iideeyeen runtii waxaa yimid bishii Maars raashinku halkuu joogay raashinkii canshuurta laga dhaafay iyo kuwii muxuu ahaa canshuurta meesta lagu sameeyay intaba meel ka hooseysa ayuu tagay dhamaantood boqolleyda runtii anagu marka mar walba ishaan ku haynay waxa weey daraasadaan ku sameeynay waxaan dareemi karaa marka alxamdulillah aad ayaan ugu amaanaa runta ganacsiga iyo warshadaha oo Cabdikariin hogaaminayo iyo Galaambi rag halkan jooga iyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed runtii inay arrinta iska xilqaameen welina meeshii iyo meel ka fiican ay arrimahaas ay marayaan gaar ahaan oo dadka Soomaaliyeed runtii ay ka shaqaysan ay u shaqeeyeen sidii horeba muxuu ahaa u dhici jirtay marka waxaan isleeyahay saameyntu aad ay u ballaaran tahay waxaan ka dareemaynaa dakhligii walba oo dawladda Soomaaliya soo gali jiray meel walba ha noqoto ka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha halkii waxaan sameynaa u sameynaa muxuu ahaa laysinada dalka runtii hoos u dhac aad u ballaaran ayaa ka yimid marka waa dareemi kartaa sector walba ayuu saameeyay oo ganacsigeena ka mid ah cudurkan runtii dadka runtii uu aad u saameeyay ama aad ugu nuglaa waxaa ka mid ah ganacsiga yaryarka maadaama 80% in ka badan ganacsatada ay yihiin dad aad u yaryar hadday haween noqon lahaayeen iyo hadday noqon lahaayeen ragba intaba ama ganacsiga ama xawaaladaha shirkadaha xawaaladaha noqoto ama gedisleyda ha noqoto ganacsiga aad u yar ama buruugta ha noqoto cid uusan saameyn habeeraatee uusan saameyn ku yeelan runtii ma jirto laakiin maanta waxa weeye waxa laga hadlaa waxa weeye saameyn intee la eg maxaa daraasado la sameeyay ka wasaarad ahaan kulli daraasad ayaan wadnaa oo ay nala wadaa muxuu ahaa hay'adda UNIDO ayaa socota oo muxuu ahaa saameynta uu ku yeeshay ganacsiga gaar ahaan marka daraasadaasna weli ma aysan soo bixin laakiin waxaan rajaynayaa in daraasado kale runtii ama ay soo baxeen ama ay diyaar yihiin ama caafimaad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama ganacsi ha noqoto marka waxaan isleeyahay arrinta kale oo aan ka baran karno cudurkan waxaa weeye oo aan isleeyahay waa laga maarmaan in fursad loo bedelo oo maxaa la jiray dadka Soomaaliyeed uu weeg u noqdo oo maxaa la jiray fursad ay u bedelaan maadaama ganacsigeenu uu muxuu ahaa import uu ahaa inta badan in la xoojiyo wax soo saarka gudaha taasna waxaan u maleynayaa in ganacsatada halkan joogto horena muxuu ahaa arrimaha waa uga wada hadalnay shacabka Soomaaliyeed waa lagu baraarujiyay runtii laakiin waan dareemi karnaa in challenges fara badan oo jiro wax badan oo wax soo saarka ku sameynaya muxuu ahaa hoos u dhigaya inay jiraan ama in farasiyar ka noqdo dalkeenu u sameeyay yahay ama xagga amniga ha noqoto laakiin mar walba in la isdhigto maaha in uu wax la qabto ayaa laga maarmaana ka wasaaradda runtii waxaan isleeyahay arrimo badan ayaan sida muxuu ahaa gudoomiye been uu sheegay ayaan ku howlanahay oo isleenahay ganacsiga Soomaaliya waxbay ka tari karaan gaar ahaan hadda waxaan wadnaa siyaasadii ganacsiga hadduusan siyaasad guud lahayn
tii warshadaha siyaasadii muxuu ahaa warshadaha ama wixii policy ahay wixii shuruuc ah oo muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan u bedelno muxuu ahaa dhaqan gelino heshiis muxuu ahaa sharciga shirkadaha oo horay runtii aad qayb badan aad muxuu ahaa halka ay nala joogaan gariiqaanadii ka soo shaqeeyay oo siyaad u kamid yahay halkaan uga jeedo iyo rag fara badan iyo runta ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhamaantood isagana waxaan rabnaa inaan u bedelno muxuu ahaa runtii inuu noqdo sharci meel mara waxaa laga maarmaan oo dhamaantiin aad ogtihiin oo dhibaato aad ku qabtaan xagga tayo dhowrka oo isleenahay wax soo saarka waxbuu ka tari karaa oo dalkeena maanta muxuu ahaa waxa ugu weyn waxa badeecada halkaan laga soo saaro muxuu ahaa ama muus ha noqoto ama liin ha noqoto ama sin ha noqotee ama inta aan rabno inaan dibadda u dhoofino waxay martaa gacmo kale ayay martaa sidaad hore u sheegteen iyadana hadda hay-addii waa howl gashay waxaan rabaa marka inaan fursaddan uga faa'iidaysto iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed oo xubin ka tahay oo boorka ama dadka ka shaqaynayo aad anigu mahad celinayo gudoomiyaha iyo muxuu ahaa xubnaha guddigan baarlamaanka halkaan laga joogo muxuu ahaa hawsha lagala shaqeeyay in hay-adda maanta dhismaheedii ay gacan kaga baahan tahay waxaan kaloo jira waxyaabaha in laga faa'iidaysto ay mudan tahay waxa weeye suuqii ganacsiga adduunka ama World Trade Organization ayaan rabnaa isagana inaan waqti u qaadanayo sanooyin oo runtii maxaa la jiray ma aha hawl dhib yar ma aha marka iyadana waxa weeye hadda waxaan noo socda processkii ahayn ayaa meel fiican inoo maraysa annagoo application ugu horeeyay runtii buuxinay rabno wasaaradda maaliyadda runtii mar hore weydiisanay inay lacagtii fiiga ahayd ay halkaa ku shubto wax weyn ayuu ka tari doonaa isleenaha ganacsiga waxaa ka mid ah kii muxuu ahaa ganacsiga aagga xorta ee Africa ama African Continental Free Trade oo isagana golaha wasiiradu ay ansixiyeen haddana aan baarlamaanka aan rabno inaan xubnaha halkaan joogo inay nagu taageeraan horgeyno heshiiskii Comesa ayaa ka mid ah suuqa Comesa inaan ka mid noqono waxaa ka mid ah inaan ka faa'iidaysano oo horay aan uga mid noqonay hay-adda maalgashiga darafyada badan oo la yiraahdo miga ama muxuu marka waxyaabahaasoo dhan iyo bolosigaas iyo suuqyadaas iyo maxaa la jira dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay wax noo fuuday doonaan iyo waxaan rabnaa hadda maxaa la jira sharciga laysimada oo isagana aan rabno inaan idinka idin soo gudbino oo aad ku yeelataan muxuu ahaa talooyinkiina iyo muxuu ahaa contributionkiina aad ku yeelataan kii trademark ayaan hadda wadnaa isagana oo muxuu ahaa golaha ka soo gudbay golaha wasiirada oo aan rabno inaan muxuu ahaa golaha shacabka inaan keeno marka wasaaraddu howlo badan ayay runtii ku howlan tahay laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ganacsatada Soomaaliyeed inay u soo jeestaan hadda sida la sheegay ama aan wada ognahay dhamaanteen ama aan wada qirayno xagga telecommunicationka iyo xawaaladaha iyo bangiyada meel fiican ayay noo marayaan laakiin waa in runtii dhinaca wax soo saarka ama warshadaynta dalka iyo khayraadka hadday noqon lahayd beer iyo hadday bad noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd xoolo intaba inaan value muxuu ahaa addition inaan ku samayno muxuu ahaa oo waddankeena waddan warshadeed aan u bedelno ganacsatadana runtii haddii suuqyadaas ay noo furmaan waxaan helaynaa opportunity fara badan access fara badan ay helayaan caalamka sababtoo ah waa dad runtii ganacsiga ku fiican oo entrepreneurs marka waxaan rajaynaa biidnillaahi alkariim in cudurkan runtii dhacay welina la leeyahay weli laga sii feejignaado oo muxuu ahaa aan la isligan inkastoo dhammaanteen dadkeena halkaan joogo aan markii aysan naga muuqan habkii looga feejignaa laha laakiin ilaahay xamdigiisa alxamdulilah ilaahaan u mahad celinaynaa dalbile show waa bandhig wareed loogu talagalay in lagu soo bandhigo horumarrada kala gedisan ee dalku ku tallaabsanayo gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax soo saarka waana hindise u gaara shirkadda adeegga warbaahinta Sima Media oo aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u leh biladda ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha ciddii haddaba danaynaysa in hawlaheeda ganacsi lagu soo bandhigo dalbile show waxay nagala soo xiriiri karaan ciwaanada hoos ku qoran soo gudbinta barnaamijkan waxaa taabageliyey Milga Media Productions